because waan hogaamiyey laakiin mas'uuliyadda waxa iska leh Kenya government iyo Her Majesty government dowladda Ingiriiska these two because waxay ignogareen rabitaanka dadka ma isleedahay taladiinni haddii la qaadan lahaa mar hore la kala bixi lahaa xataa haddaa annagu markaa aanan advocate garanayn inaan ka goono dhulkan oon waafaqayna nidaamka Kenya dhibka NFD haysto sida hadda sidaan buu ahaan lahaa waxaa jira wax la kala xayiraayo ma isku dhex darmi karno xataa haddaanan halgan gelin waxba aanan gelin isdhiibi lahayn mushkilada NFD halkaas sidaan bay u taagnaan lahayd halkan wuxuu ahaa markaa in dadkan go'o oo dadkooda raaco ay Soomaali noqdaan dadkaasna loo rajeeyo hadday wanaag heli karaan wanaagooda xajisku maanan rabin inaan burburino Kenya gobolnimadeeda naguma jirin Who made an attempt to flee from this place was a young man. Actually, he ran in this direction. I could raise my head and watch what was happening. And then as he was almost about to get out of the fence, then he was shot down. And then I remember the officers who were then doing the torturing and the killing said that that is going to be meat for the hyena. The young man died just outside the fence. Before you were released because you were a government official, what's the worst thing you saw here? The humiliation, the beating, the undressing, the denial of water and food and the shed, and then, collecting our own clothes and then putting them, on the back of naked people and setting them on fire was a scene that, any normal person will shrink from. Geographically, I feel I am a Kenyan, geographically. But fairness and justice per se, I don't believe it exists in Kenya. gabar gishaantay oo tayda ay ooysay gabadhii u jiitay ku kala askari kale jiitay qooqadu ooynaysay ana aqaan daawadaada sir bilcaantana waa lagu daray bilcaantana waa lagu daray intaan ana u jeegay gabadhaada xoogay markii meesha lidin geeyey maxaa ugu horreeyey oo aad aragtay oo indhahaaga soo qabtay kulli waa dharlaan oo la isdhex fadhiya waa see alla ilaa fool xun maalintii waana la garaacay bugtaa nagala gelid maxaa kuugu darnaa oo adiga aad aragtay intaad meesha joogtay aniga ruuxayda waxaa ila dhashay 4 wiil oo kale ila dhalatay 4 meyd waa meesha ku dhinteen midaan aniga iskuulka soo bixinay oo aabbahaas dhalay oona rajana ahay ogoonna ah aniga aabbahay weynay meeshaydaa lagu gowrac sideed ku fakatay marka adiga habeenkii shanaad yaa annaga in la soo durduray maqribkii gawaari alla keen gawaaridii markii la keenay booliis ah gawaarida la isdabageli korkayda dhacaroor iyo biyo iyo waxaa ka socda dhiig korka haddaad fiirisa meel ii fiyow aniga markaan 15 mayl oo u jirta Tarbaj yaa nugula daal markaan waddada ku soo dhacay mugaaburkooda waxaan ku joogsanaa qof madaxiis oo dadkii jidka sii hay gawaarida taraaree yaa ku soo samata bixiyay markaan waxaan ku soo gaaray
ilaa 3 saac oo subaxnimo dadkii xaafadihii anaga hor imaaday owraa naga hor imaaday dadki waa nagala carara ilaa dharlaanaan ahay gibilkaynana gibil la fiiran kara oo muslin as fiiran kara ma ahay saas awadeed saa u soconaya markii 4 maylka aan soo yara dhaafay aan naaga umalayla shaawa biyo weelal wato dadka raadina anaga hor imaaday